fayn dheeraada ayaa ka soo baxaysa markab ay gacanta ku dhigeen ciidanka difaaca ee Puntland gaar ahaan ciidanka booliska badda kaas oo lagu qabtay degmada Bareeda ee gobolka Ras Casay ee Puntland markabka sida aan hore u jabinay waxa la xaqiijiyay in laga leeyahay dalka Turkiga oo ka soo shiraacday Turkiga kuna socday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen saraakiil kala duwan oo ka tirsan laamaha ammaanka ee Puntland markabka ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay la aaminsan yahay inuu ku taagnaa ama joogay biyaha Puntland gaar ahaan marka laga hadlayo gobolka Ras Casay laakiin galabta ay u suurta gashay ciidanka ammaanka ee Puntland inay gudaha markabka fuulaan oo ay markaa ogaadaan waxa uu markabkan wado waxa uu markabku wado ilaa hadda warar kala duwan oo faahfaahsan kama aysan bixin dawladda Puntland ha yeeshee sida ay sheegeen saraakiil wargala waxa uu wadaa markabkan shixnad culus oo hubeed oo ay ku jiraan gaadiid ka gaashaaman ee noocyo kala duwan leh laakiin ay ugu badan yihiin baabuurta culus ee loo yaqaan beebayaasha kuwaas oo noocooda aysan horay Soomaaliya u joogin wararku waxa ay sheegayaan in markabkan sidoo kale uu wado saanad kala duwan oo hubeed oo noocyo kala duwan leh kaas oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidanka ammaanka ma jirto faahfaahin dheeraad ah dawladda federaaliga ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho xubno kala duwan oo aan la xiriirnay ilaa hadda ma aysan bixin jawaab lagu qanci karo oo la xiriirta in hubkan ay leedahay dawladda Soomaaliya iyo in kale sidoo kale magaalada Muqdisho wararka aanu ka helayna waxay sheegayaan in jiraan dhinacyo kala duwan oo ay ku jiraan ganacsato sheeganaysa mulkiyadda hubkan ay leedahay laakiin su'aasha isweydiinta la ilaa hadda jawaabta aan loo hayno waxa ay tahay sida ay ganacsato u yeelan karto hubkan culus ay ku jiraan dabaabaadka culus ee loogu talagalay gaadiidka gaashaaman ee ciidamada